muddada intaa leega dhowr 10 sano yaa saxaafadda ku soo dhex jirtay mar macallin ka soo ahayd mar saxaafi laftiisa ahayd caqabado intee leeg ayaa adiga ka macallin ahaan ama ka macalliyaysan ka qabsaday su'aalaad muhiima wariyaasha caqabado way la kulantaa dad badan oo saxaafadda ku soo jiray muddo dhibaato badan baa la kulantaa qaar haday tahay qalabka haday tahay shaqada haday tahay goobta laakiin reality marka laga hadlayo caqabada koowaad dadku waxay moodayaan marka hore meel saxaafadda wax laga helo laakiin magac iyo maamuus iyo karaamo mooyee laga helo dhaqaale badan oo buuran dabcan laakiin se markaan taa ka imaado waxa jira caqabadaha aniga ila soo kulmay institutionadii aan ka soo shaqeeyay dhammaan waxaan uga tagay oo aan warbaahinta marba aan meherad uga baxayay aan marba TV uga tagayay marba institution uga tagayay fikirka aan sito iyo fikirka ayagu ay wataan ma kala jaadooda dabcan fikirka meheradaha loo furay majority institutionada warbaahinta waxaad moodaa inay isku dabacad yihiin dadka furtaa waxay u furaan wada ganacsi inta badanna si wanaag kuma soo beegmin institution nin wariye ay leeyahay oo hadaan anigu nin wariye u shaqo tagi lahaa institution uu leeyahay waxaan rajaynayaa inaan isku fikir noqon lahayn laakiin si institutionno dadka lahi aan wariye lahayn ayaan u shaqo tagay marka waxa dhacaysa wax loo yaqaan caqabada koowaad ah inaan barnaamij aan sameyn karaynin ee ay meeshii ay noqonayso institutionkii uu noqonayo mid ku shaqeeya fikirka reporter waron أنا وحنا هاي بروديوسر ومي ريبورتر كليا waxaan jeclahay inaan program soo saaro caqabada ugu badan ee saxaafadda gala kulantay wata marka waxaan isla fahmeyni war barnaamijyo aynu soo saarno ummadda dadka wax u faa'iideeya dadka kordhiya aqligooda dadka horumar gaarsiiya laakiin se majority warbaahintaasi waxa ay moodaa in ciqaab lagaaga dhigayo ama dadka aad la shaqeysaa ay jecel yihiin inay war lacag la raadi wadmin war lacag la muhiimadda marka hesho dad war lacag la iska imanaya asaga imanaya طبعا Soomaalidu waxay tiraahdaa marka luga meel hesho madax la leeyahay marka luga meel hesho aad madax la leeyahay marka hesho dad customer oo macmiila oo ku xidhan institutionkaagi oo ay ka hela barnaamijyo iyo xogo tayo leh aan waxaan aaminsanahay reality marka laga hadlayo taa hadii taa la helo institutionka taa hela inuu dabooli karayo wararkana loola imanayo waxa taa makhraatika saaxiibkii Maxamed Awad Maxamed TV loo jiray Somali channel buu ka shaqeyn jiray bro TV-gii markuu Somali channel wuu dhaqaajiyay mar qura TV-ga Somali channel burco mooyaan asaga mooyaan wax kale la daan waayay waxa jiray markaa Honkebel baa jiray waxa jiray markaa waxa jiray TV-ga loo jiray Universal baa jiray TV way baa jiray laakiin Somali channel baa burco laga jeclaa waa maxay sababtu maxaan awd maxaa dhaqaajiyay wuxuu ka dhaqaajiyay dadka reer burco iska tusay markaan anigu waxaan aaminsanahay marka qofka reer burco barnaamijyadiisii uu ka arkayo meeshan in dadkan uu ka upgrade institutionkii talabaad waqtigan xayeysiiska lagu dabaqayo iyo heesaha iyo fawaaxishka aan waxaan ka taageeri lahaa in warbaahintu ku daboosho barnaamijyo iyo programo dadka lagu dhisayo oo wax lagu barayo dadka wax lagu faa'iideynayo dabcan marka iminka tusaalahan aan waxaan aaminsanahay hadii dadka la baro askari baa ku xidhay ka tusaale yahayahan askarigu hukumu soo marin xaqii aad lahayd muwaadin baad tahay xaq baad leedahay wadadii aad lahayd kuma soo marin mar labaad askariga ku xidhay hadii uu tacaddud ku sameeyay khalad ku sameeyay uga dacwooni inta garanaysid hadda adigu garanaysid waxaad u baahan tahay dad waxa dadka bara ayaa loo baahan yahay oo institution dadka bara oo ilaado hadii askari uu kugu khaldamo halkaas looga dacwoonaya hadii nin madaxi uu kugu khaldamo halkaas uga dacwoonaysa ila madaxdu khaldami kartaa waa bilaadan ayo dad isku mid dad u meenahay inoo ma laga dhex magacaabeen madaxdan haduu madaxdi ka khaldanto waxaad u baahan tahay deegaanka uga dacwoon lahayd inaad hesho institutionka uga dacwoon lahayd wadadii aad u mari lahayd dacwadaada aad ku guuleysan lahayd oo muwaadinkani uu dibka kaga bixi lahaa loo baahan yahay qofkii awood lahaa meeshii ka qaban lahayd baa loo baahan yahay cidii cilmiga bari lahayd ee dastuurka xaq ku siiyay ku bari lahayd ee ku bari lahayd waxyaabo ka far badan oo kale damee waayo huis waa kuma way ugu dambeyntii baa saxaafadda iyo guud ahaan ardayda saxaafadda barta ee aan wali iyagu saxaafadda ku soo beerin maxaad kula tan lahayd waa su'aal muhiim ah Yaxya runtii markaan anigu la hadlayo dhalinyarada aan baranin iyo markaan la hadlayo dhalinyarada ku shaqeysa waa laba kala jaada dhalinyarada aan baranin markaan la hadlayo waxaan leeyahay dabcan qof kasta ma aha saxaafaddu kaliya xirfadda uu jecel yahay ee uu aaminsan yahay in uu wax ka soo dhalin karayo ee uu aaminsan yahay inuu ku wanaagsan yahay habarto
waayo qofku waxaanu aqoontee uu bartay oo aanu ku shaqayn karaynin xirfad ahaan jacayl ahaan u qabin shaqadaada waa inaad ku qanacsantahay shaqadaada waa inaad ku faraxsantahay shaqaduna waa shaqo haadho kulul waa shaqo adag waa shaqo loo dhidido waa shaqo laakiinse haddii aad dadaashid aad ku gaari kartid mustawa fiican dad lacag aan ka shaqeeya lacaga dhowr kun oo doolar ka badan Vermont oo aan ka shaqeynin hay'adaha iyo shirkadaha ka shaqeynin laakiin warbaahinta kaliya ka shaqeeya way jirtaa dadkaas laakiin waxaan kula talinayaa marka hore qofka horta ku shaqeynaya shaqadan inuu yahay shaqadan shaqo haaro kulul qofkii doonaya inuu barto waxaan leeyahay si fiican inuu ga meel dhaliyo annaka ka Nuuraddiin ahaan dugsiga Nuuraddiin oo aan nahay maamul ku-xigeenkiisa saxaafadana aan ka dhigo hadda labadaba aan isku hayo waxaan anigu aaminsanahay dadka aan soo saarnay ee aan saxaafadda barnay intii ugu badnayd imika aan xirfadda saxaafadda dhigayay Nuuraddiin baan joogay sanadkii 2014 mooto Nicolas Maxamed mooto jaamac ragga noocaas fara badan leh waxa ka soo saaray Nuuraddiin ninka loo yaqaano Cabdiwaaxid nimanka loo yaqaano Cabdirashiid nimankaas oo dhan halkan ka soo saaray waxaan anigu aaminsanahay dadkaas ama reporterska aan soo saarinay kala duwanaayay aan Nuuraddiin ku soo tababaranay inaan anaga iyo maamul Cabdiladiif Shaasmaan aan iska kaashanay bal sidii waxbarasho tayo loo bari lahaa oo aan halkan u shiishaynay ay ahayd inaan culays saarno waxbarasho tayo marka hore aan xulanayno si fiican aan xulanno marka aanu baraynana aan dadaal fiican galino iyo juudi marka aanu soo saarnana aanan ka hadhin ee aanu shaqo abuur iyo placement job aan la sameeyno oo shaqo abuur ku sameeyno oo aan bal la raadino wax intaan la raadin karayno dabcan rag badan ilaahay way ugu gacan qabtay waxaan rajaynaynaa inta u baahan hada saxaafadda ay doonaysana Nuuraddiin gacmo furan buu ku soo dhaweynayaa taas wata talabaad qolada saxaafadda ka shaqeysa ee hada saxaafadda ku jirta waxaan leeyahay war saxaafaddu waa mihnad ilaahay idin kula xisaabtamayo si xirfadaha kale bay dadka ilaahay kula xisaabtamo wax kasta oo ilaahay carabkaaga ka soo saarayo waa kula xisaabtamaya war ha xulanin war ha samaynin war wax label iyo magacdil ha samaynin war shirkadaha iyo institutionada qaar xataa shirkadaha anigu been ka sameeyay baan u garanaya wariyaala war waxaan leeyahay saxaafaday ilaaliya xeerka sharciga saxaafadda oo saxaafadda ku tumanina oo cilmiga saxaafadda aad barateen tabaqa oo hadii xataa even ay institutionkaasi dambi galay wana aaminsanahay shirkadaha oo dhani inay khaldan yihiin wana aaminsanahay dawladdu inay khaldan tahay lafteedu oo waxay khaldan yihiin laakiin si ciidan khaldan marka doonaysid toosid ha u adeegsanin awoodda qalin ee aad haysatid qalinku awood buu leeyahay awoodda ha u adeegsanin ku tabakh adigoo awooddaad sameynaya bal ayagana si dhinacooda codka ay isku difaacayaan ha isku difaacaan eedda iska difaacaan ugu yaraan ha iska difaacaan haddii aanay iska beeninba oo eedaas aanay jirinba oo eedaha qaar baa la sameeyo samaysa marka waxaan leeyahay horta jaaniska iyo sharciga ku dhaqma oo dastuurka ilaaliya midda ay ugu dambeysaan leeyahay aad uga meel dhaliya sidii aad institutionada ugu khasbi lahaydeen in dadka wax bartaan dadka wax faa'iideysan oo dadkii aad ka jeedisaan siyaasadan bal dad gabigeeda dalkiiba dhamaaba wuxuu ka sheekeynaya Cabdiraxmaan ba halka maray Muuse halka marayay in halkaas war siyaasadan aynu iska dayno dadkeenani aynu u jahayno nolosha horumarkeeda oo aynu u jahayno dunida sideen ula jaan qaadi lahayn oo aynu u jahayno sideen aakhirada looga fakari lahaa oo dadka waxa la baro ayaan kula talin lahaa saxafiyiinta halkan ugu dambeyntii waxaan uga mahadnaqayaa dhammaan bahweynta reer Somaliland ee daawan doonta barnaamijkan waxaan uga mahadnaqon doonaa haddii la idmo ummadda islaamka waxaan halkan uga mahadnaqayaa dhammaan ardaydeedii aan soo tababaray kuwa aan sheegay magacyadooda iyo kuwa aan magacooda sheegin oo aan wada jeclahay dhammaantoodba oo nu ducaynayo ilaahayna ku guuleeyo barnaamijyadooda iyo fikirkii leeyihiin iyo meeldhalinta ay wadaan waxaan kaloo halkan uga mahadnaqayaa adigoo Yaxya oo barnaamijkan iga duubay iyo Cabdiwaaxid oo asna barnaamijkan qayb ka ah oo duubay barnaamijka oo ah ninka ididgareeyay ee habeeyay ee quruxda barnaamijka ka soo saaray asna wuu mahad celinaya waayay markaan inta ka imaado mahad celinta uga imaado runtii aniga inaan qof noqdo oo aan halkan aan maanta kula fadhiyo waalidkay ayaa ilaahay sabab uga soo dhigay waalidkay wuu mahad celinaya waxaan kaloo mahad celinayaa jacaylkayga aan jecelahay
xaaskayga samsam kaafiya oo runtii aad iyo aad iyo aad ila soo garab istaagtay horumarka aan ku sameynayo xagga nolosha xabiibtii aad baan ku jeclahay waana ku mahadcelinayaa intaas daawadayaal waxaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkeena la kulanka haldoorka oo toddobaadkiiba aad hal mar ka daawan doontaan burca cable TV barnaamijka toddobaadka waxaa inoogu marti ahaa macalin yaasiin caawil xaaji cali oo ah bara saxaafadeed iyo sidoo kale suxufi rugcadaaya kaasi oo aad looga wada yaqaano guud ahaan Soomaaliland barnaamijka waxaa la socodsiinaya aniga oo Yaxya Kaysan Maxamed